بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada janalkeena gacmo furan iyo qalbi saafi ah. Waa idin soo dhaweynaa Soomaali weyn, waan idin salaamay meel walba joogtaan. Maalin wanaagsan. maanta mawduuca aan ka hadlayno wuxuu yahay ducada iyo isxijaabida, faa'iidada iyo fadliga ay leedahay oo adiga dan ay ku tahay mar walba noloshaada inaad noqotid qof xijaaban oo sharta ka xijaaban mar walba oo ilaahay aad u sii dhawaatidna waxa waaye dunida waa ka saahideysaa. waxaad ogaanaysaa intee in la eg ay tahay wax yariis oo aan qiimo lahayn, si walba loo buunbuuniyo qiimaheeda ayaad ogaanaysaa. mar walba ilaahay waxaa laga baryaa horta inuusan naga qadinin nicmada dunida iyo nicmada aakhira, labada nicmo baa isku rabnaa. soo adduunkana ma rabno inaan ku noolaano dulinimo, ma rabno aakhirana saas oo kale inta labadaba ilaahay waa laga baryaa inuu ku xifdiyo. laakiin hamigeen ugu weynna ma aha inuu noqdo tan dunida, labadaba waxa waa isku dheelitir. ma inaad iloobeysatid dunida aad dhees aniga kaliya aakhiradeeda u shaqaysanaya maya. nabigeena calayhi salaatu wasalaam haddii qiyaamaha uu dhaco ayuu dhahay, markuu dhaco qiyaamaha haddii uu dhaco oo midkiin uu geed rabo inuu beero yaanu joojinin ee ha beero. soo ilaa nafta ay kaaga imaanayso waxaa waa dadaalaysaa, waa soconaysaa, waa shaqaynaysaa, waa samaynaysaa wax walbo oo dunida wax ku biirinaya amba waxtar leh waa samaynaysaa. macnihii ma ahan waxaa laga yaabaa dadka qaar inay qalad ka fahmeen nolosha dunida dhan in laga guuraayo maha macnaheeda oo aakhira leh loo jihaysanayo maya. soo adiga asbaabaa lagu abuuray, kaliya inaad ilaahay caabudid ma ahan. ilaahay inaad caabudid waa sabab ka mid ah sababihii lagu abuuray inaad ilaahay caabudid, laakiin asbaabo kale ayaa jira. soo inaad bulshadaada wax ku tartid waajib ku saaran waa in wax aad awoodo inaad qaban weysid wax laga xumaado waa adoo wax awooda haddana aad leedahay ma qabanayo adduunyada waa ka guuraayo maxaa u qabanayaa. soo waxay noqonaysaa doqonnimo ayay noqonaysaa. bulshadaada waa inaad wax ku tartid, wax walba ood qaban kartid waa inaad qabataa, ood nolosha alayle aad kusoo biirin kartid aad kusoo biirisid. muhiimad ku saaran ayaa jirto oo adiga aad ka jaahil tahay ama aad iska jaahil garaynaysa markaad tiraahdo aniga tan adduunka dhan ma qabanayo maya. adduunka iyo aakhirada waxaa waaye in la isku dheeli tiro waaye. laakiin sababta ay tahay markaan soo noqdo mawduuceen, sababta ay tahay inaad u duceysatid, sababta ay tahay inaad naftaada u xijaabtid. qofka mar walba markaa soo toosto horta maalintii haddii aad dukatid salaada subax, salaada ugu horeysa subaxdii haddii aad dukatid noloshaada dhan horta okay waaye. maalintay kaa tagto adiga xataa u fiiri ama hurda ha kaaga tagto. inta badan hurdee dadka uga tagtaa ilan qof soo jeeda salaadii waa dukanaya sooma oo salaad oo leh waa dukanaya. maalintaasi ma qurux badna, mana u ekaanayso maalinta aad dukatay salaada subax oo kaleente ma noqonayso. marka maalintaada markaad salaad ku bilaabatid, markaad quraan akhrin aad ku bilaabatid, markaad duco aad ku bilaabatid iyo isxijaab aad ku bilaabatid, isbarbardhig ku samee maalinta kale. ama aad dukatay oo kaliya aadan waxba akhrinin, aadan quraankii furin, aadan duca akhrinin, isku mid ma ahan. labada maalinta aad wax akhrisay maalintaas way ka baraka badan tahay maalinta kaleenta, way ka qurux badan tahay, way ka degan tahay nafsiyan xataa. marka wax walba oo noloshaada aad samaynayso waxaa fiican u fiirsatid. sax quraanka tijaabo ma ahan wax hubaal waa haddii quraanka ilaahay waxa waaye wuxuu dejiyaa qalbiga ayuu dejiyaa, hubaalna waa ilaahay yaa dhahay subxaana wa tacaala. laakiin adi u fiirso markaad dukanin ama aad dukatay oo kaliya oo wax dheeraad aadan samayn oo kitaabka quraanka aadan furin oodan akhrin oodan ducaysanin iyo maalintaad wax akhrisid aad ducaysatid qurux maalintaasay aaday u degan tahay. aayada waxaa jira amba suurada waxaa jira ee daruuri tahay maalinta inaad akhrisatid noloshaada adiga dan kuu tahay ee qurux badan tahay, sida suurata yaasiin oo kaleenta aaday u fiican tahay. marka salaad subax dukatid oo kaleenta iska akhriso inuu ilaahay kugu xijaabo, iska akhriso in ilaahay ajarkeeda ku siiyo xataa u akhriso. quraankan waxaa qurux badan markaa akhrinaysid in maxay ahaatay ilaahay jaceylkiisa oo ilaahay la sheekaysanaysaa, ilaahay hadalkiisa maadaama uu yahay oo ku raaxaysanaysaa inaad ilaahay jeceshahay aad la joogtid. soo qofka aad jeceshahay waqti badana siisaa soomaha bini aadanka. marka allah subxaana wa tacaala aniga jaceylkiisa ayaan u akhrinaya, asagaan jeclahay. soo inaad waqti siisid waa waqti intee leeg ayaad siisaa noloshaada isku dheelitir sameeytan adduunka iyo tan aakhirada anagoo dhanteen adduunka badan. marka isku day
isku day xataa maalintii saacad 2 saac intaad awoodid isku day haddaadan awoodin waqtigaaga uu aad u yaryahay nus saac isku day intii awoodaad inaad 2 saac siisid wax qurux badan waa maalintaasi xataa kala qayb 3 saac waa qaybin kartaa subaxii nus saac si ama 1 saac si waqtiga ee galinka dhex aad nasanaysid 1 saac si ama nus saac si wax dan ku waa aday dan ku tahay waa mar walba oo ilaahay aad u dhawaatid asagan ilaahay waa ku dhawaanaa waa ku soo dhawaanaa soo arimahaaga oo dhan way ku hagaagayaan haddaanay ku hagaagin ilaahay sharti kaaga badbaadinaya sharti adiga ku soo socota ay ilaahay kaaga celinaya marka waxaa jira oo quraan amba ducooyin oo subaxii marka soo kacid sida ducada subaxii oo kaleente adkaar sabaax oo kaleente daruuri waa inaad akhrisatid macawadaadka kaleente inaad akhrisatid suuratul ikhlaas inaad akhrisatid aayad kursi inaad akhrisatid kuwaasoo dhan xijaab waa aday ku xijaabayaan daneen ku tahay waxaasoo dhan danahaaga waa inaad akhrisatid ka hor intaadan gurigaaga aadan ka bixin haddii aad tahay qof shaqeeyo ama haddii aad tahay qof arday ah oo wax baranayo oo intaadan gurigaaga ka bixin akhriso adoo xijaaban bax waa dunida maanta waxay noqotay mid shar badan mid waxay noqotay cajiib ah dadka kuugu dhow inay ku dhibaateenayaan markaad iska ilaalinaysa cadowga banaanka inaanu cadow kaa jirin aad ogaanaysid oo cadowga hareerahaaga yahay aad ogaanaysid soo adigan aadan arkeenin oo markaad dhacdid kaliya aad ogaanaysid ama markay ku xanuujiyaan oo kaliya si ilaahay sharta dunida oo dhan kaaga nabadgeliyo iyo sharta aakhiraba ilaahay u dhawow suurada quraan waxaa jira maasha Allah tabaarakallah oo maalin walba haddii aad joogtaysid ay noloshaada wax iska bedelayaan suurta duxaa oo kaleenta dad akhrisid markaad dukatid salaata duxaa suurta duxaa marraba waxaa aad u fiican tahay dad akhrisid oo kaleenta iska akhri inta dariiqa socotid akhri maxay ahaatay alam nashrax oo kaleenta suurta inshiraax inta dariiqa socotid oo kaleenta akhri waqti uma baahan suurada yar oo waxaa oo xifdin soomaha kuligeen aan qaano waa inta jidka socotid iska sii akhri haddii gaari aad gaarigaaga intaad kusii dhex jirtid iska sii akhri waxyaabo badan oo waxaa jira oo noloshaada wax ka bedelaayo marka aad akhrisid quraanka ilaahayna waxaa waay daawo waay soo ma xataa haddii aad xanuunsan tahay daawo waay haddii aad xal weysan tahay xalka ilaahay ku siinayo haddii arrin masalan ay kugu adkaatay oo kaleenta oo adiga aad xal u la'dahay oo xal aad weysan tahay ilaahay bari kuna tawaasul suurada yaasiin ilaahay ku bari in ilaahay uu ku tusiyo makhrajka ama meeshii looga baxay arrintaas uu ilaahay ku tusiyo waa arkaysaa wax la hubo waay shaki kuma jiro xataa haddii ay tijaabo ay ka tahay yani tijaabo inkastoo aan ahayn quraanka markaad akhrinayso yaqiin inaad u akhrisid markaad ilaahay aad barinayso aad dhehayso yaa Allah aad gacmaha kor u taagayso in yaqiin ilaahay inuu kuu soo jawaabayo oo ku maqlaay oo kuu jeedo wixii aad weydiisatayna uu ku siinayo inaanu shaki kaa galin ayaa qurux badan marka noloshan waxaa qurux badan in la isku dheeli tiro tan aakhiro tan adduunyo qof marka taa isku dheeli tirin waxaa waa qafladu ilaahay kaa badbaadinayo hadda aakhir zamaanka waxaa badanaya dadka mawtul qaflada badanaya sooma qofkii iska socda oo dhimanayo marka adoo qafle oo mawtul qafladii uu kugu imaado waxaa waa wax xun waa ilaahay noo makas kuligeen ilaahay waxaa ka baryaa subxaanahu wa tacaala qaatumadeena inuu noo hagaajiyo oo maalin qurux badan ay noqoto maalinta ugu dambaysa aan dunida ka tageeno anagoo dhaheen ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah sala allahu calayhi wasalam ilaahay uu nagu dilo dariiqada ugu fiican jidka ugu habboon ee markaan dhiman alalehe dadkoo dhan ay noo markhaati kacayaan ay dhahayaan waxay ku dhinteen waxay ku dhimatay ama wuxuu ku dhintay khaatimo wanaagsan ilaahay nagu dilo tan kaleenta haddaad rabtid dunida waa laga tagayaa wax yar oo kooban waay inay maxay ahayd aad raad wanaagsan ka tag mar walba waxaad samaynaysid ilaahay uga cabso wax walba aad samaynaysid amaano waay waxa aad sheegaysid oo carabkaaga kasoo baxaya run ha ahaado waxa aad maxay samaynaysid run ha ahaado shaqo haddii ay tahay aad shaqaynaysid waxaa laga yaabaa qaarkeen inay ku nool yihiin wadamo qurba ah wadamo gaala ah ha isdhihin qofkan gaal waay amaano waay shaqada adig aad qabanaysid amaano waay waa inaad sida ugu quruxda badan aad u gudid amaanadaas aadan khiyaameenin qofka muslimka ah waxaa waaye khiyaanada xaaraani kaa tahay sooma inaad wax khiyaamaysid xataa haddii qofkaas kugu diin ahayn xataa qofkaas hadduu yahay qof aan diin lahayn aan ilaahayba aqoonsanayn laakiin shaqadii waajib adigu ka saaran waa inaad si daacad oo ikhlaas inaad u gudatid oo ilaahay dartiis aad u gudatid marka aasaaska wax walba ku ahaad ilaahay dartiis aniga asxaabteyda wanaajiyaa ilaahay dartiis ehelkeyga wanaajiyaa ilaahay dartiis واجب إسارة وأنا أهل كي وناجي إلهي درتيس أساسكو إيه صاحب ذي وناجي إلهي درتيس أصمينا إلهي أجعلكو وناكسه
seygaygaa wanaajiyaa ilaahay dartiisa u wanaajiyaa xaaskaygaa wanaajiyaa ilaahay dartiis ayaan u wanaajiyaa ayadoo ay tahay waajib haddana aasaaskii wuxuu u yahay wax walba ilaahay dartiis ayaan u sameeyaa marka maasha allah tabaaraka allah markaad wax walba aad aasaaska aad ka dhigatid liajlillaah noloshaada oo dhan waxay noqonaysaa mid qurux badan maasha allah tabaaraka allah ilaahay subxaana watacaala kulligeen hanaga dhigo kuwa isxasuusiyo maalinta beri maanta waxaan sameynaynan waxaa waaye maalinta beri wax noo imaanayo waay waa buugaagii oo adiga aad qoranaysid ood ka tahay maxaa la dhahaa qofkii alifaay ood ka tahay adiga directorkii ood diyaarinaysid oo beri aadan akhrin karin waa foolxumo